بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا فيديو كوبان عن كسر بندقية سيدا لوجو شبا لونا كراجريو Intuit QuickBooks Enterprise Solutions كان أو يسوي لبا فرشن وانتربرايز accountant iyo enterprise solutions labadii idba product waynu ugu jiraan labadii product ba marka talabada koowaad waxaad sameynaysaa in aad right click tiraahdo zip folder ka ama rar-ka aad haysato oo software ka extract ayaad oranaysaa kadibna okay ayaad oranaysaa marka aniga kan aan la soo degay passwordkiisa 123 ayaa ku xidhan marka waxa la okay marka intaas aad extract dhamayso waxa ku sameysmaya folderkii oo furfuran oo la magaca kii aad extract tree marka isaga ayaad furaysaa marka aad furto si dhex gasho waxyaalahan ayaa ku soo baxaya marka laba qaab ayaad sameyn kartaa inaad kan ku horeyso karaaga marka waxaan ku horeynaynaa karaaga halkan waxa ku jira wax la yiraahdo keychain-ka waxaad ku sameynaysaa double click ama right click dabadeedna run as administrator labada option ba waad sameyn kartaa marka waxaad oranaysaa yes marka uu saab ugu bilaabmo codkan ka xidhay marka uu saab ugu bilaabmo kan waxaad gelaysaa products oo marka xagga ku yaala products-ka marka gasho haddii aad doonayso QuickBooks Enterprise Solution kan ayaad gelaysaa QuickBooks Enterprise Accountant Edition kan ayaa qaadanaysaa marka 185152 ayaan qaadanayaa copy paste baad sameyn kartaa ama adiga ayaa caadi u qori kara maadaama ay iska tahay 4 digit xagan ay ku qoran tahay product number ayaad waxaad leedahay 185152 kadibna waxaad oranaysaa generate waxaad heshay license number cusub ayaad heshay halka tan oo ku taala oo sideeda kugu furan ayaad marka waxaad ku noqonaysaa folderkaagi hal mar back ori dabadeedna set up-ka QuickBooks ayaan right click oranaya waxaad oranaysaa kadibna run as administrator dabadeedna yes way marka run as administrator 3 waxa ku soo baxay marka kan ay ku soo baxay mostly sidaabadan dambe internet ugu baahan yihiin marka aniga internetkayga active weeye halkan ayaan taabanayaa isla marka meesha aan taabto ayaa waxa active noqonaya waxa active in iska xiriya page-ka halkan ayaa I accept terms and license agreement marka aad timaado meeshan license number ma haysatid marka waadigi generate gareeyay hopefully in advance intan ayaad soo qaadaysaa waxaad oranaysaa copy dabadeedna license number ka ayaa siinaysaa license number ka kaas aan u baahnahay inaan ku sameeyo product number kana waa soo qaadanaysaa ilaa kii aad haysatay weeyaan marka koowaad aad dooratay marka isagana waad gelinaysaa next ayaad oranaysaa marka aniga option kan koowaad aan iska dooratay waxaan leeyahay next markaan dhiraahdo marka waa version-kii 24 ee u dambeeyay weeye waxaan leeyahay next halkan waxa iga soo baxay lasi install laga yaabo in xogaa qaadato marka waan dedejin doonaa adiga waad sugi doontaa laakiin aniga marka waan dedejin doonaa qaybta marka uu ku dhamaado installation-ku waxa ku soo baxaysa window noocan oo kala ah marka window-gan wuxuu koranayaa open QuickBooks sida daraadeed application-ka ha ilaawin batch-ki waa inoo furan yahay oo waynu batch gareyn doonaa ha ilaawin inaad batch gareyn doonto marka kaliya waxaad sameynaysaa internet-ka ayaad iska xidhi doontaa disconnect ayaa internet-ka oranaysaa marka aad tiraahdo disconnect ayaad waxaad oranaysaa open QuickBooks waa tahay marka QuickBooks-ki ayaa ku soo saaraya sidaan ayuu ku soo saaraya waxaad internet-kina waa ka xidhan yahay waxaad oranaysaa kaliya accept and continue marka window-ga weyn ee QuickBooks-ka ayaa wax ku soo bandhigayaa begin activation marka offline waa tahay marka tiraahdo begin activation daaqad ballaaran oo noocan ah ku soo baxaysa waxaad oranaysaa cancel marka tiraahdo waxa kaliya u baahan tahay wax la yiraahdo validation code
marka validation code-kii sida aynu ku helinaa waxa weeyaan batch-kii aynu kusoo bilownay oo ay noogu jireen product number iyo license number ayaynu markii hore awal intaynu product number-ka gelinay niri generate iminka waxaynu oranaynaa validate markaad tiraahdo meeshan waxa kaaga soo baxay validation code kan weeyaan ka loo baahan yahay marka waxaad oranaysaa copy markaad tiraahdo validation code-ka ayaad halkan dhigaysaa waxay ka dhigan tahay in aad wacday shirkadii Intuit si aad u dhamayso product activation-kaaga kadibna ay ku soo siiyeen code-kan ay ku soo siiyeen validation code-kan next haddaad tiraahdo waxa xiga waxa weeyaan inuu ku yiraahdo thank you for activating QuickBooks Desktop marka hawshaas sida ay kaaga dhantahay update ku madka ilaalin finish marka aad u mahadsantihiin intaan ku soo koobayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.